بسم الله الرحمن الرحيم. maanta waxaan sameysanaynaa cabitaan aad iyo aad u qiimo badan. waxa weeyaan carrot iyo beetroot oo la isku daray dabacas aynu naqaanaa. carrot-kana carrot baynu naqaanaa. maasha Allah faa'iidada ku jirta labadan haddaan isna hadhan maanta oo dhan ka sheekeeyo kama sheekeyn karno, waayo waa ilaahay waa khudradda root-kooda hoos u baxo ee aad iyo aad u qiimaha badan. la khudradna waxa u qaalisan oo u qiimo badan khudradda root-ka hoose ee dhulka hoosteeda ku baxda oo midhuhu kow ka yihiin carrot-kani ku jiro, beetroot-kani ku jiro, ciidda dhexdeeda iyagu ku baxaan. qaarna xagga sare ciidday ku baxaan oo kor bay u baxaan, qaarna hoos bay u baxaan. markaa qoladani waa qolada mineralka xoogga haysta oo hoos u baxa oon qiimahooda la koobi karin. waxay caawiyaan oo kor u qaadaan caafimaadka qofka jirkiisa, ayay kor u qaadaan boost health bay sameeyaan. wuxuu leeyahay, waynu ognahay carrot-ku wuxuu leeyahay vitamin A, C, K iyo mineral aan la soo koobi karin oo aad iyo aad u fara badan ayuu leeyahay. jirka wuxuu ku sameeyaa wuxuu ka saaraa qashinka oo dhan iyuu ka saaraa. liver functionka wuu hagaajiyaa oo wuxuu hagaajiyaa isaga iyo beetroot-kuba waa qolooyinka ka shaqeeya xataa beerka liverka ayay aad uga shaqaysiiyaan sunta ka saaraan. carrot-ku wuxuu dheeryahay indhaha number 1 kow. organic mid abaa fiican markaan san oo kale anugu ka organigan maanta soo iibiyey maasha Allah. blood circulation ka improve gareeyaan labaduba. waa isku qolo laakiin mineral kala duwan baa ku jira, faa'iido kala duwan baa ku jirta, laakiin labaduba xagga caafimaadka kow bay ka yihiin. inflammationka ayay reduce gareeyaan. especially beetroot-ku qiimihiisa ma soo koobi karno, waayo oxygen fara badan, anemiyadu wax ka taraa oo dhiig la-aantu wax ka taraa. jirka wuxuu siiyaa pigment oo xataa madmadowga dad kale aad buu ugu wanaagsan yahay inay cunaan oo jirkooda midabka uu soo celiyaa. beetroot-ku aad iyo aad buu u qiimo badan yahay haddaad marsato xataa marmar iyo haddaad cabto labadaba. waa nimcooyinka ilaahayna siiyey ee dhulka ku jira, waa khudradaha dhulka hoostooda ka baxa. yaan la moogaan weliba seasonkii beetroot-kaynu ku jirnaa aad buu isagoo 5-5-6 iskugu xidhan suuqa u yaalaa. marka mashiinadii lagu shiidanayo waa la haystaa. haddii kale qofku sidaa intuu u jarjarto ha iska cuno. aniga imika waxaan ka siinayaa cabitaan baan ka samaynayaa, sinjibiisha iyo lindhanaan yar baan ku darayaa. kama go-aysid cabitaankooda xataa. marka ha la ogaado walaalayaalo, nimcooyinka ilaahayna siiya hareeraheena yaalla intaynu dhaafayno aynu wax kale eegayno. lacag ha iskaga khasaarin macaan. tan soo qaado 2 midho carrot oo organiga iyo xabada beetroot-ka soo qaado, shiido, nina ma taqaanid. wabillahi tawfiiq, wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. hadda galaaskii waa kan, waxaan ku ridaynaa carrot-kii iyo beetroot-kii iyo jinjartii. beetroot-kii oo aan jarjaray baan ku ridaynaa, biyahan ku shubaynaa. wakaas hadda waa miiraynaa. wakaas maasha Allah maasha Allah. caafimaadka lala ogaado caruurta hala siiyo. waa beetroot iyo carrot aan isku ridqay. ilmaha la siiyaa aayan ka dhinaan mayso. indhuhu wax dhigashada ka xanuuni maayaan. waxa caafimaadka lagu dadaalo. ilaahu bal maalimka ka sheekeeya heblaayo waxay tiri 50 qof baa markaleeta soo wada boodi lahaa. waxa caafimaadka haddaad ka sheekaysanayso maanta oo dhan ka sheekaynaysa cidi dhegaysan mayso. qof walba waxa weeyaan wixii uu yaqaano soo bandhigaya. idinkuna waxaad taqaanaan soo bandhiga. kolley anigu galabtii markaan soo hoydo oo aan daalanahay energy badan baan ka helaa markaan carrot-kan iyo isku shiito beetroot-kan. caruurta la siiyaana sidaan sheegay ma soo noqoto. wabillahi tawfiiq. بسم الله الرحمن الرحيم. maanta waxaan sameysanaynaa cabitaan aad iyo aad u qiimo badan. waxa weeyaan carrot iyo beetroot oo la isku daray dabacas aynu naqaanaa. carrot-kana carrot baynu naqaanaa. maasha Allah faa'iidada ku jirta labadan haddaan isna hadhan maanta oo dhan ka sheekeeyo kama sheekeyn karno, waayo waa ilaahay waa khudradda root-kooda hoos u baxo ee aad iyo aad u qiimaha badan. la khudradna waxa u qaalisan oo u qiimo badan khudradda root-ka hoose ee dhulka hoosteeda ku baxda oo midhuhu kow ka yihiin carrot-kani ku jiro, beetroot-kani ku jiro, ciidda dhexdeeda iyagu ku baxaan. qaarna xagga sare ciidday ku baxaan oo kor bay u baxaan,
qaarna hoos bay u baxaan markaa qoladani waa qolada mineralka xoogga haysta oo hoos u baxa oon qiimahooda la koobi karin waxay caawiyaan oo kor u qaadaan caafimaadka qofka jirkiisa ayay kor u qaadaan boost health bay sameeyaan wuxuu leeyahay waynu ognahay carrotku wuxuu leeyahay vitamin A C K iyo mineral aan la soo koobi karin oo aad iyo aad u fara badan ayuu leeyahay jirka wuxuu ku sameeyaa wuxuu ka saaraa qashinka oo dhan iyuu ka saaraa liver functionka wuu hagaajiyaa oo wuxuu hagaajiyaa isaga iyo beetrootkuba waa qolooyinka ka shaqeeya xataa beerka liverka ayay aada uga shaqaysiiyaan sunta ka saaraan carrotku wuxuu dheeryahay indhaha number 1 kow organic mid abaa fiican markaan sanoo kale anugu organic aan maanta soo iibiyey maasha allah blood circulation ka improve gareeyaan labaduba waa isku qolo laakiin mineral kala duwan baa ku jira faa'iido kala duwan baa ku jirta laakiin labaduba xagga caafimaadka kow bay ka yihiin inflammationka ayay reduce gareeyaan especially beetrootku qiimihiisa ma soo koobi karno waayo oxygen fara badan anemiyadu wax ka taraa oo dhiig la-aantu wax ka taraa jirka wuxuu siiyaa pigment oo xataa madmadowga dad kale aad buu ugu wanaagsan yahay inay cunaan oo jirkooda midabka uu u soo celiyaa beetrootku aad iyo aad buu u qiimo badan yahay haddaad marsato xataa marmar iyo haddaad cabto labadaba waa nimcooyinka ilaahayna siiyey ee dhulka ku jira waa khudradaha dhulka hoostooda ka baxa yaan la moogaan weliba seasonkii beetrootkaynu ku jirna aad buu isagoo 15-6 iskugu xidhan suuqa u yaalaa marka mashiinadii lagu shiidanayo waa la haystaa haddii kale qofku sidaa intuu u jarjarto ha iska cuno aniga imika waxaan ka siinayaa cabitaan baan ka samaynayaa sinjibiisha iyo lindhanaan yar baan ku darayaa kama go-aysid cabitaankooda xataa marka ha la ogaado walaalayaalo nimcooyinka ilaahayna sii hareerahayna yaalla intaynu dhaafdhaafayno aynu wax kala eegayno lacag ha iskaga khasaarin macaan tan soo qaado 2 midho kaarada oo organiga iyo xabada beetrootkaa soo qaado shiido nina ma taqaanid wabillahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi hada galaaskii waa kan waxaan ku ridaynaa kaaradkii iyo beetrootkii iyo jinjartii beetrootkii oo aan jarjaray baan ku ridaynaa biyahan ku shubaynaa wakaas